Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada Tusaale Channel. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa 10 caado oo loo baahan yahay inaad iska joojiso si aad noloshaada isbeddel iyo horumar ugu samayso. Waxaa hubaal ah in uu qof walba doonayo inuu noloshiisa horumariyo oo uu ku noolaado nolol dhan walba ka dhammaystiran, laakiin dhibka jiro waxaa weeye in uu qof walba doonayo inuu isbeddelka iska yimaado, taasna ma aha wax dhici kara. Maanta waxaan kuu soo gudbinayaa 10 caado oo yaryar, laakiin haddii aad iska saxdo caadooyinkan qaldan, aad xaqiijin doonto horumar weyn iyo isbeddel la taaban karo oo ku yimaada noloshaada. Waa muhiim in aad qalin iyo warqad soo qaadato oo aad qorato, kadibna aad ku dhegsato derbiyada qolkaaga. Caadada koowaad ee loo baahan yahay inaad iska joojiso waa hagaajin la'aanta sariirta aad ka soo kacday subaxii. Maxaa yeelay waa halka ay ka bilaabanayso firfircoonida maalintaada ama caajiska maalintaada. Ogsoonow, xoolaha ayaa iska dhaqaajiyo marka ay hurdada ka soo kacaan subaxii. Hagaajinta gogosha lagu seexdo kadib marka laga soo kaco waa qayb ka mid ah tababarada la siiyo ciidamada dalalka qaarkood. Marka ayaysan kula noqonin wax fudud, qofna ha ku halaynin adiga qabso hawshaada. Caadada labaad ee loo baahan yahay inaad iska joojiso waa jimicsi la'aanta. Jimicsi la'aanta waa caado xun. Ku dadaal inaad jimicsi u samayso si maalinle ah. Qasab ma aha in aad biro waaweyn qaado oo aad murqo waaweyn dhisato, laakiin waa muhiim in aad si maalinle ah isku kululayso. Waxaa jiro jimicsiyo fudud sida inaad push up samayso ama inaad orod yar gasho oo ruclo ah. Jimicsiga maalinlaha ah waxa aad ka helaysaa firfircooni iyo in aad caajisin maalintaada. Caadada saddexaad ee loo baahan yahay inaad iska dayso waa kafeega ama shaahiga aad ka gadato makhaayadaha tag awayga. Qof walba wuxuu jecel yahay inuu subaxii qac ka siiyo koob kafee ama shaah ah. Waxaa habboon in aad gurigaaga ku samaysato, aadan makhaayadaha ka gadan. Marka aad gacantaada ku samaysato ayaad dhadhanka aad rabto u samaysan kartaa. Sidoo kale, dhaqaalo badan ayaa kuu baaqanayo oo kaaga bixi jiray makhaayada. Dhanka kalena, caafimaad ahaan waa laga dayriyay koobka tag awayga ee shaaha lagu qaato. Ka digtoonow. Caadada afraad ee loo baahan yahay inaad iska joojiso waa cuntooyinka fudud. Cuntooyinka macaan laakiin dhibaatooyin wata. Inta badan waxaa laga digaa cayilka xad-dhaafka ah oo caafimaadka qofka baabi'iya, laakiin dhibka waa cuntooyinka fudud oo meel walba yaala. Xitaa haddeer waxaa laga dalbadaa online-ka. Qofka markuu online-ka wax ka dalbado, caajis yar haddii uu dareemo, waxaa laga yaabaa in uu dalbado cunto fudud oo halis ku ah caafimaadkiisa. Cuntooyinka fudud waxay sababaan cayil xad-dhaaf ah, dheefshiid xumo, cudurrada wadnaha, xanuunka sokorta, cudurrada beerka ku dhaca, cudurrada nafsiga. Waxaa sidoo kale laga dhaxlaa hilmaan badan ama xasuus la'aan iyo daal badan. Sidoo kale waxay sababaan cudurka kansarka. Marka ka digtoonow, go'aan ka gaar isla haddeertaan. Caadada shanaad ee loo baahan yahay inaad iska dayso, iska jooji in aad lacag badan jeebkaaga ku qaadato. Sababtoo ah haddii aad jeebkaaga lacag badan ku qaadato suuqa markaad gasho, waxaad arkaysaa adigoo waxaadan u baahnayn xataa sii gadanaya. Marka aad lacagtii dhammayso ayaad soo xasuusanaysaa adigoo isweydiinaya sababta aad u soo gadatay. Caadada lixaad, iska jooji fikirka badan. Fikirku waa hub laba afle ah. Waa loo baahan yahay in aad ka fikirto wixii aad wax ka qaban karto, laakiin ha isku dayin in aad ku dheeraato ka fikiridda wax aadan waxba ka qaban karin. Ilaahay isku xir salaada iyo ducada kaasho, halkaasna uga har oo Ilaahay tala saaro. Caadada toddobaad, iska jooji ku tiirsanaanta xooggan ee daawada aad ku tiirsan tahay. Dadka qaar ayaa ka dhammaanin xarumaha dhakhaatiirta iyo farmashiyaha ayada oo laga yaabo in uusan jirin xanuun weyn oo ay daawo u qaataan, laakiin aaminsan in aysan daawo la'aan socon karin. Inta xanuunsan Allah ha caafiyo, daawooyinkoodana caafimaad Allah ha ugu daro.
ku dadaal in aad daawo ka maaranto. Waxaa la yiraahdaa ka hortaga ayaa ka wanaagsan isdaaweynta. $1 oo aad daawo iyo xanuun uga hortagayso ayaa ka wanaagsan kumanaan aad isku daaweyso. Caadada 8aad, nasashada la'aanta duhuradii. Waxaa loo baahan yahay in aad iska dhaafto nasasho la'aanta duhuradii. Waa in aad wax yar indhaha isku qabato oo aad yara gamacdo duhurkii. Waa caado laga yaabo in aysan dadka u wada suurtagelin, laakiin waa caado haddii aad samayso wax badan kugu soo kordhayso, firfircooni badanna aad ka helayso. Caadada 9aad ee loo baahan yahay inaad iska joojiso waa wax akhris la'aanta. Muhiimadda ugu horeysa ee wax akhrinta haddii aan nahay Muslim waa inaan akhrinaa kitaabkeena Qur'aanka Kariimka. Marka aad dukanayso 5 waqti, waa inaad 2 waqti aad ku dartaa inaad akhriso Qur'aanka Kariimka. Jadwalkaaga maalinlahana waa inaad ku darsataa. Dhanka kalena akhriska buugaagta iyo waxyaalaha muhiimka ah. Bal soo akhri dadka guuleystay. Caadooyinkooda kuwa ugu muhiimsan waxay ahaayeen wax akhriska. Adigana ku darso maanta waxay ka bilaabto caadooyinkaaga maalinlaha ah. Caadada 10aad ee tahay inaad ka guurto waa wax cunida xilliga dambe ee habeenkii. Waa cunto uu dhibkeedu ka badan yahay dheefteeda. Dhibaato weyn oo xagga caafimaadka ah ayaad kala kulmaysaa marka iska jooji cunitaanka xilliga dambe ee habeenkii marka aad seexanayso. Muuqaalkeena halkaas ayuu ku eg yahay. Wixii talo iyo tusaale ah kommentiga noogu soo qor. Tani iyo muuqaalka xigo sidaas iyo nabadgelyo.